kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada janaalkeena wararka 24 akhbaaraadka weyn ee daawan doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Khayre oo qarameynaya ciidamadii Mukhtaar Rowo Somaliland oo heshiis caalami ah gashay Sheekh Shaakir oo la kulmay xildhibaano mucaarad ah beeshii diiday in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaado ciidamadeeda oo shaacisay sababta ay u diiday iyo xog sheegaysa in Ra'iisul Wasaare Khayre uu doonayo ciidamada oo ururinayo ku xoreeyo deegaanada ay ka soo jeedo beeshiisa bangiga adduunka oo war wanaagsan ka soo saaray dhaqaalaha dalka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan soo dhawaada saaxiibayaal marka hore daawada hamogaan subscribe dhahto channelkan oo aad furto gambarelka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya waa hagaag daawadayaal aan ku bilownay Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa doonaya inuu qarameeyo ciidamada Mukhtaar Rowo Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa markii ugu horeysay booqday gobolka Bakool waxaana safarkiisa uu ku gadaaman yahay arrimo dhowr ah oo ka jira deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa inuu booqdo xeryaha ciidamada dawladda kuwa Koonfur Galbeed iyo ciidanka daacadda u ah Sheekh Mukhtaar Rowo Cali Abu Mansuur oo hore ay dawladdu u soo xirtay ujeedada ugu weyn ee socdaalka Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa waxa ugu muhiimsan sidoo loo qarameyn lahaa ciidamada Abu Mansuur oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa waxa ay hore shuruud adag ugu xireen in la qarameeyo kadibna lagu beeriyo ciidamada xoogga shuruudahaasi oo ay hore u hordhigeen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa ka mid ahaa in ciidanka hoggaankiisa ay qayb ka noqdaan iyo in dhammaan hubka iyo gaadiidka kala duwan ee ay haystaan ciidamada kale iyo sanadooda loo dhameystiro iyagana haddaba waxa ay dad badan isweydiinayaan sida uu Ra'iisul Wasaaruhu u fulin doono shuruudahaas isagoo wax badan ka og hogaamiyaha ay ka amar qaataan ee Mukhtaar Rowo ayaa hadda u xiran ciidamada Soomaaliya kadib markii ciidamada ammaanka ay ka soo xireen isaga oo musharax ah magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lama oga sida ay wax noqon doonaan balse Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa hore ugu guuleystay inuu qarameeyo ciidamada maamulka Ahlus Sunnah iyo maleeshiyaad ku sugnaa deegaanada maamulka Galmudug waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 hamogaan daawadayaal subscribe dhahto channelkeena oo furto gambarelka sidoo kalena aad ka soo aragtid dhibato qodobada aad wararkeena ku daabato markana haddii aan eegno Somaliland ayaa heshiis caalami ah gashay madaxweynaha Somaliland ayaa heshiis cusub oo dhinaca horumarinta ah la saxiixday dawladda Ingiriiska kadib markii ay dhawaan Somaliland ka hortimid mashruuc loogu magac daray marxuum Engineer Risow kaasi oo laga fulinayo magaalooyinka Muqdisho iyo Berbera heshiiskan ayaa waxa dawladda UK qalanka ugu duugay madaxa hay'adda DFID Mr Damon Bristol war ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu faahfaahiyay waxyaabaha uu la xiriiro heshiiskan qoraalka ayaa lagu sheegay in heshiiska wajigiisa labaad ee kaalmada Britain ay ka qayb qaadanayso sanduuqa horumarinta Somaliland iyo sidoo kale kobcinta kheyraadka tamarta iyo maamulka heshiiskan ayaa ku soo aadayay iyadoo madaxweyne Muuse Biixi uu la kulmay safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya Ben Fender waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 hamogaan daawadayaal ka soo aragtid dhibato qodobada aad wararkeena ku daawato sidoo kalena aad subscribe dhahto channelkeena oo aad furto gambarelka si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya markana haddii aan eegno madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir ayaa la kulmay xildhibaano mucaarad ah madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa kulamo gaar ah la qaatay xildhibaano ka tirsan kuwa mucaaradka ku ah dawladda federaalka ee Soomaaliya kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa uu dhex maray Sheekh Shaakir iyo xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ah musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee dawlad goboleedka Galmudug labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha ammaanka dib u heshiisiinta iyo doorashada la filayo dhawaan inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug taasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha maamulkaasi Sheekh Maxamed Shaakir ayaa kula dardaarmay xildhibaanadaasi inay ka qayb qaataan horumarka iyo dhismaha loogu jiro Galmudug loo dhan yahay xaaladda Galmudug ayaa hadda ah mid degan waxaana si caadi ah ku socda shirka dib u heshiisiinta oo jimcihii uu furay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 hamogaan daawadayaal subscribe dhahto channelkeena oo aad furto gambarelka sidoo kalena aad ka soo aragtid dhibato qodobada aad wararkeena ku daawato haddii aad muuqaalkan ka heshaan waad la garan kartaa markana haddii aan eegno beeshii diiday in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qaado ciidamadeeda ayaa shaacisay sababta ay ku diiday ugaas Xasan ugaas Khaliif oo ah ugaaska beesha Xawaadle oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa si kulul uga hadlay ciidamada ay dawladdu doonayso inay ka qaado Beledweyne kuwaas oo la geenayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta ah maamulka Galmudug ugaaska ayaa sheegay inuu la soo xiriiray wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Soomaaliya isagoo uu weydiiyay sababta ay u diidayso beeshiisu ciidamada ay dawladdu u qaadayso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta ah maamulka Galmudug ugaaska ayaa sheegay in ka oday dhaqameed ahaan aysan diidaneen in gobol kale loo qaado ciidamada dawladdu u jooga gobolka Hiiraan balse ugaasku waxa uu dawladdu ku eedeeyay in gobolka ka aruurinayso dhalinyaro uu sheegay inay arday yihiin isla markaana ay xiran yihiin macawiisyo sida uu hadalka u dhigay sidoo kale ugaaska ayaa mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa
ciidamada qaybta 12aad ee ka yimid magaalada Dhuusamareeb ee hadda ku sugan Beledweyne waxa uu ku eedeeyay inuu yahay ninkii hogaaminayay dagaalkii deegaanka Banyaale ku dhexmaray beesha ugaaska ee Xawaadle iyo beesha degta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ee Habargidir gaar ahaan beesha Cayr. Ugaas Xasan ayaa sheegay in reer Hiiraan aysan wiilashooda u dirin magaalada Dhuusamareeb isla markaana aysan dawladda ka aqbalayn damaceeda ah in dhalinyaro aan tababar qabin daryeel ciidan aan haysan ay u qaado gobol kale sida uu hadalka u dhigay. waa hagaag dawadayaal wali waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 mugan daawadayna subscribe dhahto channelkeena aad furto gambrelka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markaana haddii aan eegno warar ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Khayre ciidamada uu ururinayo uu doonayo deegaanada uu ka soo jeedo beel ahaan sida ay xogaha ku heleen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa doonaya inuu ururiyo ciidamo al-shabaab ka xoreeya magaalooyinka ay ka mid yihiin Ceelbuur, Galhareeri, Jacar, Bargaan iyo Wabxo oo ka tirsan gobolka Galgaduud. al-shabaab ayaa intii ay jireen maamulayay deegaanadaas oo ay dhammaantood degto beesha uu ka soo jeedo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre taas oo ku taalo ku noqotay sida ay xogaha ku heleen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo aan ku qanacsaneyn in deegaanada ay beeshiisu degto ay si xooggan u maamulaan al-shabaab. Khayre ayaa waxa uu arrinkaasi ku dhashay 2 bilood ka hor markii uu tagay deegaanada Galmudug oo socdaal ku soo maray intooda laga xoreeyay al-shabaab. talaabadii ugu horeysay uu qaaday Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa ahayd in isagoo jooga Dhuusamareeb uu waxgaradka beeshiisa ee ku sugan Muqdisho uu ka dalbado in loo soo aruuriyo dhalinyaro lagu tababaro Galmudug si markii ay dhameystaan tababarka loogu xoreeyo dhulka ay ka arrimiyaan al-shabaab ee ay beeshiisu degto. xogaha inuu helayno ayaa sheegaya in 200 oo askari oo Khayre ku hayb ah laga qaaday Muqdisho tababarna loo geeyay Galmudug kuwaas oo hadda uu tababar uga socdo dugsi lagu magacaabo Harqaboobe oo ku yaala duleedka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa intii uu joogay Galmudug waxa uu isku dayay in ciidamo tababar loo furo uu ka soo qorto deegaanada xorta ah ee Galmudug balse beelaha qaar ayaa ku fahmay qorshihiisa halka beelaha qaarna ay ogolaadeen oo ciidamadii laga soo qoray ay tababar ku qaadanayaan magaalada Gurceel oo ka tirsan gobolka Galgaduud. sidoo kale Ra'iisul Wasaare Khayre oo ka baaran degay inaysan ku yaraan ciidamada uu doonayo ayaa saraakiisha qaybta 12aad waxa uu ku amray inay tagaan gobolka Hiiraan kana soo qoraan dhalinyaro iyadoo reer Hiiraan lagu qancinayo in la bilaabayo dagaal saf ballaaran ah oo ka dhan ah al-shabaab sida la sheegay. saraakiisha oo fulinaya amarka Khayre ayaa hadda ku sugan magaalada Beledweyne waxayna degmooyin badan oo ka tirsan gobolkaasi ka soo qoreen dhalinyaro si tababar loogu siiyo deegaanada maamulka Galmudug waxaana arrinkaasi ka soo horjeestay odayaasha iyo waxgaradka reer Hiiraan oo diidan in wiilashooda loo qaado deegaanada maamulka Galmudug. waxaana jira dagaal beeleedyo hoose oo u dhaxeeya beelo kala diga gobolka Hiiraan iyo gobolka Galgaduud. waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 mugan daawadayna subscribe dhahto channelkeena aad furto gambalalka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markana haddii aan eegno bangiga adduunka ayaa amaanay kobaca dhaqaalaha Soomaaliya. dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sanadkan sare u kici doona 2.9% halka sanadkii hore uu ka ahaa 2.8% ka hor inta aanu degdeg u gaarin 3.2% ilaa 3.5%. saadaasha sare u kacaya 3 ilaa 5 sano ee soo socota ayaa ku xirnaan doonta sida dalka uu awood ugu yeesho joogteynta iyo isbedelada dhaqaale ee socda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay bangiga adduunka. dakhliga ka soo xaroodo canshuurta ay aruuriso dawladda Soomaaliya ayaa sanadkii tagay sare u kacay 29% kadib markii dhaqaalaha waddanka uu ka soo kabtay abaaro xooggan oo dhacay sanadkii ka sii horeeyay isla markaana ay dawladda ay isbedel ku sameysay siyaasadeeda canshuuraha dalka. bangiga adduunka ayaa weydiisay dawladda inay abuurto sanduuq lacageed oo gaar u ah waxbarashada si dawladda uu ugu ogolaado inay dalalka kale ee gobolka iyo saaxiibada Soomaaliya ka hesho lacag lagu taageero waxbarashada. sanduuqa lacagta adduunka ayaa bishii May sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ku taagan yahay wadadii saxda ahayd ase yeeshee waxa uu ka digay inuu beelahan yahay amni darrada isbedelka cimilada iyo saboolnimada ka jirta inta badan wadamada Afrika. waa hagaag daawadayaal gudahaan waxaan inta ku soo gabagabeynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. ha mogaan daawadayna subscribe dhahto channelkeena aad furto gambalalka sidoo kalena aad ka soo aragtid dhibito qodobadii aad wararkeena ku daawatay. sidoo kale daawaday asxaabtada ayaa la sii wadaagi kartaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya si ay iyaguna u helaan xog dhameystiran. mar walba ku xirnaa channelkeena wararka 24.